بسم الله الرحمن الرحيم إلهي waa mahadleh ilaaha sugan kale inagoo nabad qabna ilaaha nimcooyinka badanina siiyey nabadda caafimaadka barwaaqada iyo roobka nabadgeliyada iyo nimcooyinka badan kale ilaahayna siiyey baa mahad leh ilaahay waxaanu ka baryaynaa isaga awood leh inuu aafooyinka jira adduunka inaga mariyo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inagu itaal ma hayne isaga awood leh gacmahaynu u taagaynaa inuu ilaahay aafooyinka ka dhawa adduunka oo dhan ka yaabiyey nahareer mariyo ilaahay uu itaal ma leh aanu ka baryayna maanta halkan qaranka madaxdiisa waxay isugu timid qodobka ugu weyn waxa weeye in laga hadlo sidii aynu soo kaashan lahayn inagoo mida uga badbaadi lahayn dadkeena uga ilaalin lahayn intii suurtagala inaanu ka badbaadino xanuunkan adduunka ku faafay ee coronavirus xanuunkaas oo cid walba ka yaabiyey waxa lagu heshiiyo adduunka oo dhan isku afgartay in lagaga bixi karo keliya talo dawo male wax laga hortago male tallaal male caalamka oo dhan wuxuu isku raacay inuu iswaaniyo waanada u kala qaato wixii wadana isfahamsiiyo wixii kalena waynu raacin ee danteena muhiimaddu waa arrinta xanuunka coronavirus oo baryahanba aad iyo aad looga dayrinayay waxaynu u samaynay guddi ka hortageed oo heer qaran ah iyo guddiyaal heer degmo ah iyo dad badan oo is-abaabulay hadday yihiin ururada samafalka hadday yihiin ururada dhalinyarada culimada dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka somalilan dhammaantood siday uga hortageen ugu dadaaleen in laga hortago xanuunka ay u qaateen talooyinkii iyo waanooyinkii waxaan u mahadnaqaynaa culimada oo qayb weyn ka qaadatay in badanna laga sugaayo inay hawshaas sii kordhiyaan iyo dadaalkaa laga hortagayo ganacsatada oo qayb weyn ka qaatay markii loo yeedhay hawshiina ku maqan waxaana sii farayaa ganacsatada inaynu u baahannahay diyaargarow xoog leh oo inaynu dhaqaale ku talagalno accountiga loo furo meel la dhigo haddii ay xaaladdu inagu sii adkaato inay hawshooda sii bilaabaan iyo shirarkoodii iyo hawsha ay wadeen waxaanu u mahadnaqaynaa bahda caafimaadka oo maanta xilka ugu weyni saaran yahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii da-da ahayd ama waaweyneed ee shaqooyinkeeda ka soo hortaargaroobay meel ay joogaanba gobollada iyo dibadahaba oo dhammaantood waxna yimaadeen oo iminka iyagu hawsha wadaan rag badan oo ama jimcida qorona xisada soo shaqayn jiray hugu ama dibadaha ka soo shaqeeyey oo gobol walba iyagu isxil saaray waxaan u mahadnaqayaa dadkii bartay caafimaadka oo dhammaantood isdiiwaan geliyey qof waliba halku joogo intii uu qaban karo uu diyaar yahay bahda caafimaadka oo mahadnaqayna bahda waxbarashada oo mahadnaqayaa ardaydii markay fasaxaan kama harin dhammaan jaamacadihii iyo iskuulladii waxay u sameeyeen duruus ka baxda idaacadaha iyo internetka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xilkaa iska saareen inay aqoontii ardaydu sii socoto waxaan aada ugu mahadnaqayaa warbaahinta tu dowlad iyo tu madax bannaanba waxay fuliyeen xilkii ahaa maanta aan midoono xooggeenna aan saaro sida looga hortagaayo cudurka adduunka o dhan ka baqay aad iyo aad baan ugu wada mahadnaqayaa waxaan idinka wada codsanayaa dhammaantiin in la sii kordhiyo hawsha waayo weli waanu wadannahay waa fayoonahay ilaahay waa inoo rooye laakiin baqaynahaya cudurka waa sii faafaya adduunka maalin walbaa soo kordhayaa waa hawlana dul taalla waxaan kaloon gaar ugu mahadnaqayaa dowladda imaaraadka carabta oo shalay diyaaradaha caalamka ee waaweyne xamuulka ah oo qalab caafimaad inoo keentay illusion 670 oo qaada ilaa iyo 60 tan ciidamada iyo howlaha lagu gurmada ah shalay keenay maantana qaybtii labaad keenayana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa berigii hore duufaantii lagu dhacdayna way inoo soo gurmadeen dadkoodii dowladooda ugu mahadnaqeen mahadnaqa kadib viruskan ama xanuunkan isu sheegi mayno in badan baa laga hadlay siduu waxay waxaan xoojinayaa keliya dhammaanteen waxaanu ka codsanaynaa inaynu fulino qodobada laga badbaadayo intaas waxaanu soo raacnay oonu doonayna qof waliba inuu ka hadlo oo culimada ka hadasha sheekh waliba dhakhtar waliba dadkeenu suurtagal ma aha
dadka aan aqoonta badan lahayn ama aan isla weyda waqsan yihiin waxay ku hadlaan annagu muslim baan nahoo naguma dhaco annaga cadceeddaa naga celiso naguma dhaco war waxaasi wax jira maaha xanuunkani gaal iyo muslim iyo yuhuudi iyo cid buu ku dhacaa bini aadmigo dhan buu ku dhacaa bini aadmiganu ka mid nahay weliba qolooyinka ugu taag darannahay dhinac walba xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha markaa waa inaynu taxadir dheeraada qaadanaaye qofna waa inaanu taa dad kala dhicin kulaylka dhulka kulul iyo kuwa kale labadaba ku dhaca waa la soo tijaabiyey markaa waxa weeye dadka iyo inaan ku lugoynin oo inaan dadkeenna ku jabinin waxaan macquul ahayn diinteennu 1400 sano ka hor ayuu nabigu yidhi alayh isalaatu wasalaam meesha daacun ku dhaca haddii aad joogtana ha ka bixin haddii aanad joogina ha gelin waa ta maanta adduunka isku raacay aqalkaa kuwa ka soo bixin magaalada ha ka soo bixin ha tegin halka wax ka dhaceen oo dadkaa ha galaafan marka inagu dhibaatooyin kalaa dadkaan inoo dheer waxaanu nahay dad aan dhaqaale badan haysan ma odhan karna dadka aqladan ku xidhayna waayo uma hayno dhaqaale aynu ku masruufo dadkeena waa garab rarto inteena badan 60% dadka magaalooyinka jooga aroortii bay ka lahaan ya arsaaq ya fataax waxay la soo noqdaan bay una markaa suurtagal ma aha inaan dhaw waan xidhayna inagoo wax diyaarin laakiin waxaan u baahannahay wixii daruuri in loo baxo qofku wixii daruuri markuu baxana inuu is ilaaliyo oo waxa la kala fogaansho iyo taabasha lagu kala qaado waxa weeye meeshii aad taabanayso inaad hubto in ama wax la mariyo ay siin ama la maylay haddii aanay suurtagal is ilaali ilaahay waa ilaalinta la ilaalin karaayo dadkana guryaha kala fogaanshaha dad masaakiin aynu nahay oon dhaqaale lahayn oo guryaha 5 iyo 6 u seexda waxaa loo baahan yahay in intii la kala fududeyn karo la iskala fududeeyo mararka wax dhacaan dadka qaar baa laga yaabaa inay ama beer leeyihiin ama miyiga wax ku leeyihiin waa loo saari karaa dadka daray carruurta meel ammaan waa loo saari karaa caqliga ayna siinay in la kala fududeeyo marka waxaan istaagayaa dhibaatada caafimaad iyo dhimashada leeyahay Maraykan iyo Talyaani qof kastoo adduunka xanuunsada caafimaadka koobay ka Talyaanigu meesha loo diro Italy cid walba way ka horreysay nin kastoo lacag leh kastoo madax maantana iyaga u liitay Maraykan waa arkaysa ilaahay nagu keenay hadii wax yimaada sasi mayno didi mayno baarak noqon mayno dad ilaahay yaqaanayno nahay iimaan baynu leeyahay waan ku sabrnaa wixii ilaahay keeno laakiin talana waan ku darnaa adkaysi baarak hadhow hadii wax soo baxaan in la wada saso oo la saxayaa maaha waa ku tira galina waxaanu soo jeedinaynaa in ummadu kii dhaqaalaha iyo xoolihiisa iimaanta waa la leeyahay sakaa loogu leeyahay sadaqa loogu leeyahay dadkii baahan ninka taajirka dhexe ka waxba hayn ka boqol shilin haysta maanta waa inuu diyaar garoobaa in la iscaawiyo qodobka kooda waa ka iyo in la ismaqlo labada inaan maanta ku daaro xanuun taasaan ku dhaafaya waxaan ku xigsiinayaa iyadoo adduunkuba qasan yahay oo dadkuba nafta la wada cararayo oo la leeyahay fayraskii meel walba maalmahan innaga waxaad moodaa inaan ugu soo dhex tuuray cid Somaliland la cadowey ay soo tuurtay wada hadallo iyo wada hadallo la galaya iyo Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaya iyo sara la yeeraya in meediyaha lagu soo daayay horta waxaan sheegay maanta adduunka shirka socdaa ma jiro arrin la haleelayana ma jirto kuwa igad iyo kuwa jaarka iyo Soomaaliland midna haleelayo maanta waa Allah biya binafsi baa la taagay see nafta loola badbaada see dadka loo badbaadiyo waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo oo ummadda Soomaaliland iyo caalamka u sheego Somaliland hadaan nahay in la wada hadlo oo Soomaaliya waa hadalkooda hore u furaa mudana oo aanu hirgelin in la wada hadlo oo danta aan isku haysanayo waxa naga dhaxeeya laga wada hadlo hadal lagu dhameeyo horena waa u qaadanay haddana waa aaminsan hadii aan rabano waa mabdi'iyo waa qodobka koobaad manihin qolo ka baqaysa fagaare gartayadu waa noo cadahay horena waynu u dhamaysanay qarankuna wuu isku ogyahay leexleexadna maray dastuurka Soomaaliland wuxuu qorayaa Soomaaliland markay cid wax la hadlayso ama alliance la galayso ama wax ku darsanayso qodobka dastuurka wuxuu leeyahay waa aftida dadweyne madaxweyne ma goyn karo golaha guursi ma goyn karo golaha baarlamaanka ma goyn karo saddexdooda istaga ma goyn karaan waa qodob dastuuriya yaala nin dhaafi karaana ma jiro madaxweynaha baan jooga anigu ma dhaafi karo kii iga horeeyay ma dhaafi karo ka iga dambeeyay ma dhaafi karo marka arrinta Soomaaliland wax la dhaqaajin kara ma aha ninka intaas siyaasad ka dagay ku soo daayay meediyaha waxbaan u hadlaynaa isaga u taala annaga ma jirto dawlad igada ama caalamiya ama Soomaaliya
oo tiri shir baynu qabsanaynaa ma qabsanaa arrintaa ma galnaa ma ka wada hadalnaa waktigan iminka ah shir la qabtay iyo balan la qaatay iyo cid rasmiya iyo cidna soo xidhito ma jirto warkaasi waa war suuq halkaasaan ku dhaafay waxaan rasmi aan dee ka jawaabayno waanu soraysanay weliba labada gole iyo cidna wax ma rasmiya sumuuci waxaan xaguul kaga yimi war suuq u daa baalaha faraha badan iminka dhegeysto ku daa marka si cid nala xidhay cid kasta wahatay tiraahdo wada hadal diyaar mawti inaad Soomaaliya wada hadashaan ha fagaara kasta oo caalami oo tagayna weliba waxaan goynaa fagaara caalamiyo caalamka dawladaha waa weli ururada joogaan in gartayda lagu dhageystayo waxaan ku doodayno gartayna dastuurkana ku qorantay hawl kale laga dooni maayo hadal badan bal geelma dastuurkan baa la horgeeyay ninka dastuurka sheegayana isaga u taala marka taa wareerkeeda iyo hadalkeeda halka ku dhigan waxa soo haray bariyahan dambe bulshada dad badan baa ka hadlay arrinta dad badan baa ka hadla odayaal baa ka hadlay madax dhaqameedka waa odayaashii dhaqanka marka ninka la madax dhaqameed ee horta wuxuu mas'uul ka yahay reerka doortay qaranka isagu ma imanadii laba madax dhaqameedka waa ixtiraamana kaalin weyn bay noo hayaan madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa koow inuu yahay nin allihiisa ka baqda nin afkiisa iyo adigiisa waa laga nabad galo oo dhowra madax dhaqameedka wax laga horaa nin xishooda nin aan balaado iyo fidmo wadin ee dadka wanaag iyo nabadayn ay ahsaan u dhaxal madax dhaqameedka waxa lagu yaqaanaa oo xeer Soomaali ah inkastoo ay qorayn haddana madax dhaqameed kasta ama caaqil ama suldaan ama ugaas dhaw dadka doortay markuu la hadlayo wax qabanayo waxa la suldaanku uu gudoomiyaa ma gooyo ma garamo marka la soo dhameeyo dadku waxay ku heshiiyaan ay u bataan ayuu gudoomiyaa lama arag suldaan iyo madax dhaqameed isagoo miidiya ka garamaya oo badalba ka jawaabaya oo diintii ka jawaabaya oo siyaasadda ka jawaabaya oo dhaqaalaha ka jawaabaya oo warbaahinta ka jawaabaya dee lama arag umana xisaaran madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa oon ku waanina inay ku ekaadaan dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka iyo dadka iyo dhaqankeena suuban ahaa ee dadku ilaalin jiray inay ku ekaadaan hadduu ka baxo suldaanku dhaqankii wanaagsanaa wixii loo xisaabtay uu bad kala galo wixii badda kaga soo noqday dee ha u diyaar garoob man dakhala maa laa yacni laqaya maa laa yardii bad aanad garan haddaad faraha la gasho wixii kaaga soo noqda hadiidi waa iga waana guud waxaan ku celinayaa warka laga deynay dadka waaweyn wax laga dhageysta ee magac lehna waa inuu ahaadaa war runa qof weyn oo fagaariya miidiyaha been ka sheegay waa mar subxaanallah su'aal waxay tawargin geed qof ka dhacday kaana intaasaan waxaan ugu dambaysiinayaa bariyahan dambe waxa iyana taalay arrimii doorashooyinka gudidii maxay ahayd commissionka doorashada horta doorasho warkeeda halkaas la dhigay caalamka oo dhan caawa Mareykanka baa halkaa dhigay qoladii baasha in guriga jirtay loo jirtay ku culus baa timi teenana waxaanu ka baxna mooyee hadalkeed ma yaalo xoogeenu wuxuu ku jira maanta tan si looga bixi lahaa waxa si wixii sharciga ah jira in la dhameeyo waa dhowtaan laba commission oo soo jeedana wada xisbi ayuu goluhu soo celiyay maalintii horena waan ka hadlay waxaan ku yiri goluhu waa madax bannaan yahay sharcigana iyaga ilaaliya iyaga nagu ilaaliya haddaan xukuumadda nahay waxaanu si xaq u leenahay markay wax soo celiyaan wixii aanu aragno inay dan ku jirto inaan kula noqono talo oo la halkaa ka eegteen mooyaane barda halkan kalena ka eegno waanu sirnay labada shir gudoon arrintaa waanu la tagay labada shir gudoon waanu ka hadalnay waxaan islaaf garanay in marka golaha wakiiladu fasaxa ka soo noqdo aan ku soo celiyo labadii ay soo celiyeen una waaya sheegna golaha dhammaantii markaa aanu u bandhigno oonu kala hadalno sababta ay u baahan tahay in la sii daayo maanta madimaynu doonaynaa khilaaf ma rabno khilaaf dheer oo 2 sano ka soo baxnay colaad baa in haysa oo kan cadawga dusheena wuxuu door kaga hadlay inoo tashanayeen Soomaaliya sana laga yeelaya xanuunkana ayna hayo midnimo baahan marka golahana abiil baan u samayn doonaa iyagoo xora waxay doonayaan inay sameeyaan in arrinta mar labaad lagu noqdo oo labada ninna halka aan ka joogno aan ku eegnay nagala eegaan iyadana waan gudbin doonaa labada gudoomiye waa kumaatay yihiin marka shir dhacmaado in naga ogolaadeen markay soo noqdaan goleesho in lagu celiyo taasna meel wacan bayno marsaa ka soconaa anagu intaasaan ku soo koobaya dhowrka qodob aad iyo aad baa u mahadsantihiin